maalmo ka hor caadada haddii aad isku aragto xanaaq, daal, murugo iyo xanuun badan oo dhanka jirka ah. Haddii aad isku aragtay astaamahani, waxaad ogaataa in aad marxaladda loo yaqaano PMS-ka aad ku jirtid. Fideogani waxaan kula wadaagi doonaa waxa keena sababaha ka dambeeya PMS-ka. Waxa lagaaga baahan yahay adiga in aad jawaabta saxda ah aanaad ka ogaatid PMS-ka wax loo yaqaano. Si qoto dheer ah waxaan kugu falanqeyni doonaa halkani muuqaalkani sababaha ka dambeeyo PMS-ka, waxa uu yahay PMS-ka iyo talooyinka oo dhanka dhakhtarka ah oo PMS-ka la xiriiro. Haddaba nala joog ilaa dhamaadka fideoga, nala dhameyso, waxaana arki doontaa waxyaalaha oo idil iyo waxa ku keenaya PMS-ka iyo sida aad ula tacaali doontid iyo dhanka dabiiciga ah waxyaalaha lagaaga baahan yahay in aad haddana aan u guda galno maxaa sababa PMS-ka. PMS-ka waxay dhacdaa marka ay hormoonada jirka ay isbedelaan inta lagu guda jiro wareegga caadada. Sababaha ugu weyn oo PMS-ka keeno waa maxay? Qodobka koowaad ka dambeeya waxaa waaye isbedelka dhanka hormoonada sida estrogenka iyo progesteronka oo saameyn ku yeesha dhanka niyadda, taasoo dhalisa murugo iyo xanaaq badan. Qodobka labaad, xiriirka serotoninka iyo maskaxda. Xiriirka ka dhexeeya dhacaanka serotoninka iyo maskaxda waxay keeni kartaa walwal, niyad jab iyo hurdo xumo. Qodobka saddexaad, heerarka prolactinka, hormoonka prolactinka oo sareeya, kuwaasi oo sababi kara murugo iyo dareen xanuun jirka ah. Qodobka afaraad, isbedelka dhanka sokorta dhiigga iyo insulin resistance-ka wax loo yaqaano. Tani waxay sababi kartaa daal, rabitaanka cuntada macaan iyo madax xanuun zaa'id ah. Qodobka shanaad waxaa waaye dhibaatooyinka la xiriira connectionka loo yaqaano HPA axis-ka mise hypothalamic pituitary adrenal axis-ka loo yaqaano, oo ah habka jirka uu u maareeyo hormoonada iyo walwalka, taasoo saameyn ku yeelan karta difaaca jirka iyo niyadda. Qodobka lixaad waxaa waaye dareenka kordho ee unugyada loo yaqaano inflammation-ka. Cilmi baarisyo la sameeyay waxay muujiyeen in heerarka sare ee bararka unugyada ay saameyn ku yeelan karaan mise saameyn badan ay ku leeyihiin dhanka xanuunka PMS-ka. Qodobka toddobaad waxaa waaye waxa loo yaqaano genetics-ka. Haddii qoyskiinu mise qof qoyska ka mid ah horaan mise hooyada ay horaan ay soo dareentay PMS-ka, waxaa jirta fursad sare oo adigana aad la kulmi karto calaamadahani. Arrinta kale waxaa waaye ugu dambeyso waxyaalaha sababi kara dareenka jirka hormoonada qaarkood. Haweenka qaar waxay si gaar ah u dareemi karaan isbedelka hormoonada, taasoo keentay inay dareemaan calaamadooyinka oo aad u xoog badan mise calaamadooyinka PMS-ka oo aad u xoog badan. Haddana aan u guda galno astaamaha PMS-ka. Astaamaha premenstrual syndrome-ka way kala duwan yihiin qofba qofka kale, laakiin kuwa ugu badan waxaa ka mid ah kow, daal iyo tamar darro inaad dareentid oo tamartii oo kugu yaraato, awooddii oo yaraato. Hurdo la'aan ama hurdo xumo oo hurdadaada ay badanaato. Xanaaq iyo dareen xanaaq badan inaad dareentid. Rabitaanka cuntooyinka gaar ah inaad isku aragtid. Madax xanuun oo 2 usbuuc ka hor mise 1 usbuuc ka hor caadada intay kugu dhicin aad dareentid. Xanuunka miskaha iyo dhabarka zaa'id ah inaad dareentid 1 usbuuc mise 2 usbuuc ka hor. Dareen murugo iyo niyad xumo ah inaad anxious aad dareentid oo anxiety badan ay kula soo siyaada aad dareentid ayaad isku arki. Calaamadaha kale aad isku arki kartid oo PMS-ka aad isku arki kartid xilligan PMS-ka aad ku jirtid waxaa waaye barar oo dhanka naaska ah inaad dareentid. Arrinta labaad waxaa waaye ina calool fadhi zaa'id ah, calool istaag zaa'id ah aad dareentid. Xanuun oo lower abdomen-ki aad dareentid. Wareer zaa'id ah adigoo idil jabigaaga uu wada qaldan yahay inaad isku aragtid. Haddana waxaan u guda galayaa sideed ugu hortagi kartaa PMS-ka
dhanka cunno ahaan iyo maaragtay waxyaalaha idil aad sameyn kartid. Cuntada oo wanaagsan maaragtay aad isticmaashid ayna ku badan yihiin maaragtay cuntooyinka hodanka ku ah magnesiumka. Magnesiumka cuntooyinka aad ka heli kartid waxaa waaye sida looska iyo spinachka iyo qudaarta kala duwan. Kuwani waxay ka hortagayaan marka magnesiumka sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa supplement ahaan oo kaniinka magnesiumka inaad soo gadatid sidii aad ku isticmaashid. Haddii aad isticmaashid cunooyinkani iyo supplementyashani magnesiumka waxay ka caawinayaan xanuunkii dhanka murqaha iyo xanaaqi badanaa ayuu maareynayaa oo maaragtay u controlaya. Sidoo kale waa inaad kordhisid cunista qudaarta iyo miraha si aad maaragtay u xakamayso heerarka sokorta dhiigga. Iska ilaali sokorta badan, kafeega badan, qaxwada badan iyo cuntooyinka baruurta leh si aad maaragtay ugu fogaato kor u kicista mise iyo hoos u dhaca tamarta. Isku day inaad biyo badan aad cabtid maadaama biyaha waxay muhiim u yihiin dheefshiidka. Dheefshiidkaagana hadduu maaragtay biyihii uu helo uu ku filnaa calool istaagii iyo arrimihii kale oo dhanka dheefshiidka la xiriiray oo PMS-ka kuu keenaya ayaa kaa yaraanaya. Qodobka labaad oo aad maaragtay sida aad uga hortagi kartid PMS-ka ayaa ah samee mise isku day inaad samaysid dhaqdhaqaaq badan iyo jimicsi badan inaad samaysid. Jimicsiga fudud sida socodka iyo orodka waxay caawiyaan xakamaynta cortisolka hormoonka walwalka ah iyo kor u qaadida serotoninka dhacanka serotoninka. Isku day inaad samaysid maaragtay stretchingka si aad u yareysid maaragtay neeftaadana rest badan inaad samaysid si aad u yareysid daalka jirka. Jimicsiga joogtada ah wuxuu caawiyaa hagaajinta wareegga maaragtay dhiigga taasoo ka yareynaysa xanuunka PMS-ka. Qodobka saddexaad ood ku maareyni karto PMS-ka waxaa waaye isku day inaad heshid hurdo kugu filan. Hurdada aad joogtaysid oo maaragtay dhanka PMS-ka haddii loo fiiriyo aad seexatid habeenkii 7 ilaa 9 saacadood hurdo kugu filan haddaad heshid waxay maaragtay kordhinaysaa maaragtay PMS-ki inuu ka yaraado calaamadihiisa. Iska ilaali marka isticmaalka telefoonka 30 daqiiqo ka hor intaadan seexanin si aad ugu fogaato maaragtay caqabadaha la xiriira dhibaatadani oo PMS-ka. Hurdo kugu filan waxay ka caawinaysaa jirkaaga inuu maareeyo sidoo kale hormoonada jirka. Qodobka afraad waxaa waaye xakamee in maaragtay arrintaada dhanka maaragtay anxiety-gaaga arrinta dhanka anxiety ka haysata stresska niyad jabka depressionka isku day inaad xakameyni karto maaragtay la wadaag waqti badan dadka aad jeceshahay maxaa yeelay bulshada noloshaada waa wax muhiim ah. Familkaaga waqti la qaado sababtoo ah waa wax muhiim ah. Maalin kasto isku day inaad maaragtay aad 5 ilaa 15 daqiiqo aad dibadda aad ku qaadatid dhanka qoraxda ama maaragtay outing aad samaysid maalinkii aad socod banaan aad u aadid mise magaalkii aad tagtid waxay kaa caawini kartaa hagaajinta serotoninka haddaad hagaajisidna oo dhacankani uu ku saxmana waxaa kaa yaraanaya maaragtay niyad jabkii xanaaqi badanaa iyo maaragtay anxiety iyo depressionki badan baa kaa yaraanaya. Qodobka shanaad oo inaad ku dadaashid loo baahan yahay waxaa waaye isticmaal daawooyinka iyo fitamiinada kala duwan oo dabiiciga ah. Vitamin B6-ka iyo calciumka waxay caawiyaan hagaajinta hormoonada oo ay yareeyaan maaragtay xanuunkiina uu ka yaraado. Ku dadaal marka vitamin B6-ka, B12-ka, B3-ga, calciumka, magnesiumka, macdantani oo idil inaad ku dadaashid oo cunadaada aad ku dartid daily routine-kaaga oo maalinkii aad ku dartid isku day. Daraasado la sameeyay waxay muujiyeen sidoo kale omega 3 fatty acid-ka sida maaragtay omega 3-ga waxaa laga helaa maaragtay kalluunka kala duwan gaar ahaan kalluunka salmonka loo yaqaan iyo flaxseed-ka. Omega 3-ga acidka wuxuu ka yareyn karaa marka xanuunka murqaha iyo hurdo la'aanta. Haddii maaragtay calaamadahaagu aad u daran yihiin isku day inaad la tashato dhakhtarkaaga. Sidoo kale maaragtay waxaad isku daydaa waxyaalaha kale oo dabiiciga aad isticmaali kartid waxaa kamid ah supplementka loo yaqaano evening primrose oil-ka. Evening primrose oil-ka wuxuu ka caawin karaa oo mise uu ka yareyn karaa calaamadaha PMS-ka oo qaarkood ah. Marka waxaan soo gaarnay gunaanadka barnaamijka. Waxaan ka rabaa marka inaad isku daydid inaad xakameyni kartid PMS-kaaga. Isku day inaad fahantid horta jirkaaga
waa tallaabada koowaad ugu horreyso ee xakamaynta PMS-ka. Isku day inaad qabtid nolol caafimaad ah oo caafimaad ku salaysan, inaad ku dhaqantid si aad u yareyso calaamadahani PMS-ka, mise si aad ugu dhaqantid calaamadaha PMS-ka sidii aad ku yareyn lahayd. Haddii aad isku aragtid dhibaatooyin culus oo zaid adiga aad kontrooli karin, ha ka labalabeynin inaad dhakhtarkaaga la xiriirto. Haddii talooyinkani halkani aan kugu soo gudbiyey ay ku caawiyeen, fadlan hal ixsaan noo samee. La wadaag qof kale oo u baahan talooyinkani. Waxaa kalood noo sameysaa follow mis comment noogu reeb dhanka xagga commentiga. Halka su'aalan ku weydiinayaan waxaa waaye, adiga haddaad isku aragtid PMS-ka, maxaad samaysay si aad ula tacaasho PMS-ka? Fadlan hanaga ilowin subscribe-ka, like-ka iyo share-ka si aad u hesho talooyin caafimaad oo dheeraad ah. Salaamu calaykum.